السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالقة وجنال كيني مام شرف وإدلة سو دواad markasta dunida fiidka joogtiin walaalahayga qaaliga ah in badan ayaan kala maqneen xoogaa waa yara mashquul walaalahayga qaaliga ah hadda ayaan dib isku soo laabanay walaalahayga qaaliga ah ilaahay dambigeena dambi waalidkeen ba Allah dhaafo walaalahayga qaaliga ah maanta waxaan idin hayaa walaalahayga qaaliga ah qisa cajiib badan oo ku dhacday gabar saaxiibo aan nahay gabar ay dhashay walaalahayga qaaliga ah gabadhaasoo waxay jeclaatay wiil arday iskuulka isla dhiganayeen ayay jeclaatay wiilkii walaha saabihii buu la waday wuxuu yiri sheekadii buu la sii waday nin wuxuu isaga dhigay in wax la qabanayo aayaheeda iyo mustaqbalkeeda dambe walaalahayga qaaliga laakiin waxaa dhacday in gabadhii wiilkii oo waxba la qaban waayay walaalahayga qaaliga ayadana ay si aad iyo aad u jeclaatay qofkii ay aragtaba asaga ay u maleyso gurigiisa gabar walaashiisa ay saaxiib la noqotay isbarteen gabadhi walaashiisa heeda waxay leedahay telefoonka soo ceebaayo ma joogtaa ha waa jooga way umaanay abaahi bilaan rabaa waa oyni walaalahayga qaaliga wallahi waa oohini la dhace naa maxaa kugu dhacay aniga walaalka waa jeclahay asagana waxay lama qabanayo walaalay macaantooy muxuu iga damacsan yahay walaalka walaalay ma og waxa weydiinaa suku هاي تلفونك كوي اور هاي iga waran gabadhi hiblaaye ahayd saaxiibta ahayd ayaanta ama wacda ma la hadashaa bal ii waran walaalay qoftaas waa la hadlaay iga dhamaa camal qale ee u dhaha gabadhi waa yar mashquulsha waa xanuunsatay jaceelku waa cudur walaalahayga qaaliga ah haddii aan lagula wadin waa cudur iyo xanuun foolxun walaalahayga qaaliga ah waxaa dhacday gabadhii walaalahayga qaaliga saas u ahayd tacbaanta cideeda reerkeeda waa ka yaabeen maxaa kugu dhacay isbitaalkan gee kansi falasi waa dhigla-aana haysa la baaniyo hilib ha loo jaro caano ha la siiyo wax walba ha la siiyo asxaabteeda qaaliga ah waxbana waa ka tarweysa waxaa dhacday walaalahayga qaaliga ah in shaatigiisa dee aragtay qaadato ay ururisato ee asaga u maleyso alla kaasaa marka walaalahayga qaaliga ah waxaan ka codsanayaa wiilasheena Soomaaliyeed in gabadha hadii aadan wax la qabanayna aadan la xasaabin oo aadan gaarsiinin meel fog dhibaatada gabadhaas ay soo martay wallahi billahi tallahi hadii arkay waaniga waa yaaba jaceelku waa cudur hadii aan lagu wadin waa cudur xun oo daawo lahayn walaalahayga qaaliga marka ilaahay inta xun baa naga qabtay walaalahayga waa gabadha waa walaasha waa gabadha koo dhixeed mustaqbalka been ha u sheegin hadii aad wax la qabanin jacayl been ha ku abuurin walaalkeygiyo adigana waxaan ka codsanayaa in gabadha aad hadii aad wax u qabanin aad hami aad gelin sababtoo dhibaatadaas ay mareysaa cidna uma ogo gabadhi ayadoo sidii gabadhi magaalada joogto waa laga waday meel kale la geeyay si kasta ayadoo waxay tiri markasta nambarkiis daleed dhahan ama daleed maayo blog ku qaban isla blog ma ku qabanayo ilaa qalbigeeda diidaayo بلاغ ولا قبك راه دليل ولا ليك راه لكن قلبي واحد جعل باستمير وبير واحد جعل باستمير ولا سحبته جعل كان لو عيار ولا لي خالي في النظام وحافع ان لسكو جعلاده دي wax la jeclaanayo oo lugooyada la iska dhaafo rag iyo dumar ayagana saas rag u lugooyna waa jiraan ayagana ilaahay ha ka baqaan ha ka daayaan lugooyada ragga marka walaalahayga qaaliga waxa ay leeyahay gabadha walaasha ya hadii aad wax u qabanaynin ha saaw been ha la wadin niyada waxba ha u gelinin dhibaatay mareysaa ha ku talaalin wax aad hore u sii wadi doonin hana ku dhibaateenin maama adigana sidoo kale gabarey waxaan ka codsanayaa inaad wiilka Soomaaliyeed aad ku ciyaarin gabdho badan waa jiraan ayagana wiilasha ku ciyaaraan rag badan waa jiraan ayagana gabdhaha ku ciyaaraan marka waxaan leeyahay isku tanasulo walaalahayga qaaliga dhibaatada ha la iska dhaafo midka kale waxa la qabto hadduu la qabanayna walaalo wax kulama qaban kari in la siiraada fiican in been la isku sheego ma fiicno walaalahayga qaaliga saasaan iska codsanayaa mar walba runta aan ku wada dhaqano shayga beenta aan iska dhaafno walaalahayga qaaliga marka gabadhii in badan la isku day ilaa hadda waa la iloosi laayahay asaga kaasa godli geyle aan ku iloobahay tiri ma iloobi kari wallahi billahi waa dhibaato jaceelka aad u dhib badan yahay ninkii jaceyl soo maray baa yaqaan ninkan jaceyl soo marin ma dareemi karo dhibaatadiisa sababtoo ma uu arkin jaceyl Soomaa laakiin qofka jaceyl haduu soo maray oo jaceyl galay
jaceyl soo sameeyey jaceylka dhibaatada uu leeyahay wuu dareemi karaa jaceylka haddii lagula wado wax dhibaataa uu leeyahay ma lahan laakiin haddii aan lagula wadin wareer waa kaligaa waalo wareer waa la yidhaha lagula waasha wanaag waaye asxaabta haddii aad ku cusub tahay janalkeyga subscribe dheh leeg saar ii sheer garay commentani ka bixi gambaleelka riix walaalahayga qaaliga ah waxaasoo dhan waa xaggiina yaan layga hagran walaashiina ahay marka waad ku mahadsantaha daawashada ay daawateen walaalahayga qaaliga ah aad iyo aadaan iskugu xiiso wallaahi maasha allah tabaaraka allah leeg sheer waa xaggiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu